الله waxaan salaamayaa guddoonka golaha xildhibaanada bahda miidiyaha iyo cid kasta oo marti sharaf weyn la joogta sideen ognahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa uu curtay oo uu bariyay waana maalin lagu weyn dhamaanteen Soomaaliland muddo 34 sanadooda waxay halgan iyo dadaal istaba joog oo naf iyo dhiig iyo wax walba ay u hurtay ay u sameeyeen sida uga mid noqon lahayd wadamada caalamka ee la aqoonsay ilaahay maanta golaheena guurtida gudoomiyaheena golaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inagoo joogno wuxuu nagu guuleeyay in maanta wadanku uu helo aqoonsi caalami ah kaga mid noqono beesha caalamka calankeena laga taago meel walba kastaba markaad gasho miidiyaha meel kasta maanta wax laga hadlayaa waa Soomaaliland laba habeen ka hor wadamada Middle East iyo Carabtu 16 milyan oo jeer baa la baaray Soomaaliland oo kaliyaad 16 milyan oo jeer ayaa gogolaha laga baaray Soomaaliland oo kaliyaad waa arin aad u cajiiba waxaan u mahadnaqayaa isla maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ciro oo loo bedelo magaciisa Cabdiraxmaan Ictiraaf ilaahayna ku guuleeyay kuna dhiirrada inuu qaato go'aanka qaraad dalkeena uu kana ictiraafka sugayay bulshada Soomaaliland ee waagaas uu bariyay meel kasta oo joogan caalamka iyagana waxaan leeyahay ilaahay haynugu guuleeyo inuu sii socoto anigu iyo ka xildhibaan ahaan maanta waxa inoo yaala inaan maxay ahayd dhamaanteen garbaas wada qabsano gacmaha wada qabsano arrinkaana qarannimadeena si wada jiro loo wada ilaaliyo dhammaan ummadda Soomaaliland ka dabaaldegaysa gobolada dalka haday tahay Sool Boorama Hargeysa Burco iyo ceeri gaabana waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin sida aan xamaasada leh qeyrada leh wanaagga leh aad u muujiseen qarannimada Soomaaliland adduunka oo dhan waxa qabsaday sawirrada dhalinyarada haweenka hablaha odayaasha dabaaldegaya ee muujinaya si ugu faraxsan yihiin aqoonsiga maanta uu qarankooda helay ay bada sugan ilaahayna maanta uu la kulmiyay waxaan leenahay idinkana aad baan intu ku mahadnaqaynaa dabaaldegyadu waa istaba socdaan wadamadu waa istaba socdaan aqoonsigu waa istaba socdaa 26 kun inaga weynala bil adduunku wuxuu isweydiinayaa Soomaaliland waayo sida baaritaanada caalamiga lagu sameeyo meel walba laga helayo waxa kamid ah in Soomaaliland ay kamid ahayd wadamadii markii la qaybsanay Afrika shirkii Baarin ka dhacay 1884 inaynu qayb inagu ka noqonay qaybtii uu British ku qaatay protectorate inaynu noqonay Soomaaliland inaynu oran jiray waqtigaana uu Ingiriisku dhulku xukumi jiray noqonay 60 kiiban xornimo qaadanay wadamadii inoogu horeeyay aqoonsada waxa kamid ah Soomaaliland dalkan Israa'iil oo abaalka hore u hayno maantana mar labaad bayna aqoonsadeen Soomaaliland ma aha doosasho ee waa dib u la soo noqosho madax banaanideedii 60 la siiyay taasoo adduunka oo dhan imka ku baraarugay dib baa loo wada baaray markii uu soo baxay warkaas adduunku wuxuu dib ugu noqday Soomaaliland waa ayo dib waxa loo helay waxay markii hore ahaan jirtay halkay ku taalo iyo seeta wadamada ka soo horjeestay Soomaaliland aqoonsigooda Soomaaliland maanta ma joogto ma la aqoonsanayaan mise waa la aqoonsan doonaa oo hor waa la aqoonsaday waxay noqotay wadan kamid ah wadamada caalamka aqoonsi caalami ah haysan waxaanu leenahay Soomaaliland waxa ku taala goob istiraatiiji ah haday dhaqaale tahay haday siyaasad tahayba waxaanay fadhidaa marinada dunida ugu badan 20% ganacsiga dunida waxay marabada agteena diyaaradaha soo galay Afrika markay imanayaan waxa ka soo galaan Soomaaliland waxaanu leenahay war wadan walba waxaad oranaysaa waxa sameynaysa ka fiirso Soomaaliland waa meel istiraatiiji ah waana meel loo baahan yahay xiriirkana waxay u baahan tahay inaan wadankiina soo dhaweyno wadankii inaga hor yimaadana aan isku daynayna si wanaagsan oo la macaamilo waxaan aad maanta mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ugu hambalyeynaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inta xukunka maanta haysa shacabka iyo ummadda Ilaahay ku guuleeyay waagaasana u bariyay waxa la yahay oo guuriyo waa maalin farxada Ilaahayna maalmo kale wanaagsan hayno ugu xigsiin